ma jeceshahay ilmahaagu fursadda ugu fiican ee tacliinta inuu helo haddii aad degan tahay dalka ingiriiska haddii aad degan tahay dalalka kale ee luqadda ingiriisiga lagu hadlo waxna lagu barto haddii aad degan tahay dalka hooyo qaab online ayuu iskuulkani ku shaqeeyaa oo caruurta wax ku bara adiga oo gurigaaga jooga amba ilmahaaga oo gurigiisa jooga ayaa wax lagu barayaa iskuulkan magaciisa waxa la yiraahdaa Key Stage Learning waa iskuul qaab online wax ku bara Englishka mathska iyo waliba science-ka iyo maadadaha kale ilmahaagu uga baahan yahay in laga caawiyaba si uu ugu keeno dhibcaha ugu sareeya iskuulka oo uu future fiican iyo mustaqbal fiican u helo ma sha Allah iskuulkaas la soo xidhiid macallin Cabdirasaaq iyo Key Stage Learning oo la ku yaala telefoonkiisa iyo adresskiisana shaashada ay ka arkaysan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دما ولا لها قيمة يقدرين تمضان كحلا channel كنا فاطمة منى channel خيرية برواقة بدن أيان دي رجينا يا مربو دافع دوني ذا كلا شوكتان يحل والبو يدين سو قارو أو داوتان فيديو جان وحنا يدين كسو قد بنا يا قصة رنتي قصة عبر قادة الشقية عشر رب ذا سيدا دمان قصص كينا إلهي سبحانه وتعالى فوائد ككتير قصص كاسي الله ينقو أنفعه كوي أنا قاتا الله ينقياله قصة داني وحي كشا كينسا وحا دالك السعودي ku noolaa dad noolo hadda jirana weli oo maaragtay 4 gabdhood bay ahaayeen 4 gabdhood waxa 4 amba 5 gabdhood ay ahaayeen waxay yiraahdeen markaan hooyada iyo u nimaadno marka gabdhahaasi waxbay barteen waxay ka soo baxeen jaamacado macallimiin bay noqdeen aad iyo aadna dumarka Sacuudiyiintu shaqada macallinimada وشقوين كوجو هرية قبتين دمر كسعوديين تو أدي أدنى وجعليهن شقاداسي شقادة معلم المادة مركا هبلهني لما أنتوا معلمين بين نقدين وحي لهذا وحن نصار نقلنا أم بقار كم يدعن لهذا وحي لهذا وحن نوني ما هو يدا يو نصاب وخنا واي وانا لكل جور كورسدي مثل برير كذي نولش كذي وضعتها هو يدا يوم مركا نصاب وخنا أنا ولا شيء كيسنا إنه waxay yiraahdeen mid walba naga midihii hooyada iyo waxay uga sheekaysaa dhibaata iga haysata sodohdayda amba xagga ninkayga khilaaf bax anigi odagayga maaragtay xaggayaga maaragtay iyo isfahan waaba jira iyo mashaakil amba caruurtii bay dhibaata iga haysataa amba dumaashiyaasha iyo dumarka maaragtay amba family-ga xagga odagayga iyo dhibaata naga iga haysataa bay mid walba oran jirtay bay tiri midba dhinacba maaragtay dhibaata ka haysatay ilaa mid nagamida gabadh nagamida oo walaashaya ayaa iyadu markasta wax dhiba oo ay sheegata haba yaraatay ma jirto had iyo jeer iyadu way iska faraxsan tahay nolosheedu way degan tahay ma sha Allah tabarakallah odaygeeda markay wada hadlayaan laba shimbiro oo iscaashaqsan baad moodaa oo waxay tiri farxad hadalka wanaagsan raxmadda naxariista wadiyaabaysa waxay tiri maalinkii dambe waanu u fiirsanay walaashay way weynaatay anagoo dhammaadu waa weynaanay caruurteedii waa weynaadeen walaashay caruurteedii u gurguurisay wiilal iyo gabdhaba haddana sidii baa xiisihii kalgacalkii naxariistii iyadii odaygeedu si isugu fiican yihiin wadiyaabaysa marnaba iyadu cabasho iyo mashaakil ay sheegtaa ma jirto halka kuwa iyaga kale markasta aanu cabanayno maanta saanaa dhacday odaygii sidan baaragtay amba family-gii ninka amba wuxuun aanu ka cabanayno waxay tiri maalinkii dambaan walaashayo weydiinay waxaanu ku niri walaalay heedhe waa tanoo dee noloshu hawsheedu way badan tahay adigu marnaba wax mashaakil ma sheegtide sidee wuxuu jiraan ma waxa weeyaan adiga xagga ma waxbaad qarsatay oo ilaahay maaragtay ilaahay aad maaragtay naxariis kaga raadinaysay oo wax sadaqo amba wax wanaagsan oo khabii'a yani khabii'a waxa la yiraahdo waxa qarsoon markaa ma waxba ku qarsoon xag Allah oo anagu aanan ogeyn oo ajaraad ilaahay kaga raadsatay ma sadaqad qarsoon ma wax qarsoon baa jira amal saalixa khabii'adu markaa waa amalka saalixa ee qarsoon ee ayna dadku kula ogeyn ee aan cidina ogeyn ilaahay mooye maaragtay cidina ogeyn oo ku qarsoon oo aad ku raadinaysid
إن إلهي فضلجيسا إيه نحريستيسا إيه دم بدافكيسا أد إلهي كجربتيد marka ma wax saasaa jira waanu kaa yaabanahayo dee nolol maasha allah tabaaraka allah aan isbedelahayn oo mar walba farxada ayaad ku jirtaa walaashay markaanu sidaa ku nidhi way fikirtay waxay tiri walaalayaalow bal dee anigu wax gaaroon xasuusanahay oo khabii ah oo dee ilaahayuuna ila ogyahay oo camal saalixa oo dee ma garanayo ilaa camal keliya ayaan xasuusanahay bay tiri waa maxay baanu ku nidhi waxay tiri waxa jirtay berigan iskuul aan maaragtay jaamacadda dhameeyay waa tii shaqo aan ka helay bay tiri tuulo yar oo kamida tuulooyinka ka baxsan magaalada Makal Mukarrama marka waxay tiri sideedana macallimiintu markay cusub yihiin wiilal iyo gabdhaba sida u badan yihiin waxa laga siiyaa shaqooyin meelo fogfog oo aan meesha deegaankooda ahayn kolba meeshii baahidu ka jirta lagu tuuraa hadhow way bedel qaataan markay dhowr sano meeshii ka shaqeeyaan ama dhowr bilood ayay bedel qaataan oo ay dalbadaan gobolkoodii iyo meeshii maaragtay reerkoodii deganayn in loo soo bedelo ayay dalbadaan marka waxay tiri aniga waa tii tuulo yar oo Maka ka baxsan magaalada Maka waa tii la iigu diray inaan ka shaqeeyo oo halkaasaan ka shaqeyn jiray soo maaha marka waxay tiri halkaasaan ka shaqeynayay waxa dhacday markaa waxaan maqlaa macallimiinta oo ina yar mar walba wax ka sheegaya oo dhaliilaya oo leh inantaa yari markasta waxay timaadaa iskuulka iyada oo wasakh dharkeedu yihiin Allah idin ciseeye iyadoo timaheedu ayna la nadiifin oo la maydhin oo la feedhin oo la dabin oo la hagaajinin inantaa yar markasta dhibaato ka muuqata in iskuulkii xataa casharadii ma fahmayso fahmadeedu ma fiicna macallimiintu inantaa yar dhaliilayo markasta isla xamanayo wax ka sheegay inantaa yar baan maqlaa bay tiri waxay tiri inantii yareyd baan waraystay aan raadiyay bay tiri inantii yareyd markaan raadiyay ina yaroo galaaska koobaad dhigata oo yaroo maxay hayday iska dee bahdilan bay ahayd oo dharkeedii waxeeda dhan maaragtay aan nadiif ahayn oo aad iyo aad u dayacan inantii yareyd baan gooni ula baxay waan waraystay waxaan ku yidhi hooyo maxaa kugu dhacay maxay hayday hooyada iyo aabahay reerkaaga iga waran si ku jiraan waxay tiri aniga hooyada iyo aabahay way isfureen oo way kala tageen hooyadayna nin kale guursatay aabahayna xaas kale ayuu yeeshay anigana waxa laygu tuuray oo i korisa ayeydayda aabahay dhashay bas dee ayeydiina markaa waa qof waayeela inkastoo markasta dadka tuulooyinka degan bay yidhaahdeen raawigii qisada soo gudbinaya markasta inkasta oo ay ka duwan yihiin labiskooda iyo daryeelka caruurta ay daryeelaan dadka magaalooyinka degan haddana inanta yar way kasii xag jirtayoo iyadu islaan ayeeye ah oo maaragtay haddana tuulo degan haddana iska danyara ayaa korinaysay inantan oo iska dayacnayd marka waxay tidhi waxa markaa danyarnimo gaara lagama sheekayno faqiirnimo gaara lagama sheekay laakiin inay ayeeye tahay waayeela oo aan daynantan yar si fiican nadaafadeedii iyo timaheedii iyo hawsheedii si fiican u daryeeli karahayno iyadiiba iska qof waayeela ah kadibna waxaan sameeyay bay tiri inantii yareed baa waxaan ku idhi subaxdii goor hore ii kaalay aniga halkaa qolkaas iigu kaalay subax walba cidna ha u sheegin waayay bay tiri inantii yareed waxay tiri waxaan soo iibiyay shaambooyada timaha lagu maydho waxay tiri suuliga meesha lagu fool dhaqdo amba lagu falaxasho halkaasi ayaan timaha ugu maydhi jiray bay tiri subaxdii hore intaan shaambo ugu maydho timiyaan u feedhaa oon u hagaajiyaa waxay tiri maxay hayday dhar wanaagsan oo uniform fiican aan u xidhaa waxay tiri inantii yareed waan daryeelaa waxay tiri xitaa marka aan magaalada dadkeedu ay kasoo jeedaan markaa reer Maka weeyaan markaan Maka imaado xataa waxaan u iibiyaa amba sanadku bilaabmayo oo kale amba semester cusub la gelayo maaragtay term cusub dharkii wixii shandadihii iskuulka wixii timaha lagu xidhxidhayay adigu wax arday u baahan yahay qalimaantii buugaagtii arday maaragtay dafaatirkii wax walbo arday u baahan yahay ayaan u iibiyaa bay tiri inantii yareyd waxay tiri cidna uma sheego waxaas waan qarsadaa aan iibinayo waxay tiri waan qariyaa cidna uma sheego anuu markaa fadliga wajiga ilaahay ku raadinaya ajarka raadsanaya subxaanahu watacaala kadibna inantii yareedna waxaan ku yidhi qariyo cid ha u sheegin inanta yar subaxdii markay timaado qol aanu ku ballanay iskuulka iigu timaadaa halkii baan kaxeeyaa suuligaan geeya waan u hagaajiya cidinana ma ogaata bay tiri iskuulkaa dhan cidi kawama warhaysa inantaa yar saan u daryeelo waxay tiri inantii yareed maalintii dambe waxay tiri macallimiintii oo yaaban ayaan haddana maqlaa bay tiri alla inantii yareed heblaaya ma arkaysaan haa inantii yareed qurux maalmahan waad yaabaysaa dharkeedii iyada dhan nidaamkeedii timaheedii nadaafadeedii shakhsiga ahayd maasha allah waa yaabaysaan ilmi yaraa marka dabcan iyo didiile iyo waxay heshay naxariis bay heshay
waa la qurxiyey waxay heshay ma garanaysaa niyadiiba u wanaagsanaatay in la jecelyayo la daryeelayay dareentay waxay noqotay markaa ilmo iskuulkii ku dadaalaysa casharadii wax baranaysa maasha allah fahmadeedii waxeedii oo dhan maasha allah tabaaraka allah waxay tidhi dhowr sanadood ayaan sidaa ku jiray macalimadu inay 4 sano tiri baan jeclay qisada raawigii soo gudbiyay uu yidhi ilaa 4 sano inay tiri baan jeclay adu galaaskii shanaad meelahaas markay inantii yareyd noqotay ayaa waxay tiri macalimadii gobolkii waa layga soo bedelay oo maxay hayday iskuulkii waan ka tagay oo halkaas shaqadaydu ay iskuulkaasi ay ku eekayd laakiin inantii inan weyn bay noqotay oo markan isdaryeeli karto oo maxay hayday timaheedii shalaysan karto oo maasha allah marka waxa weeyaan waxay tiri markaa anigu maalin maalmaha kamid ah bay tiri walaashaasi aniga oo waxay tiri xaflad qalin jabin ah oo gabdhaha macalimiintii ku qalin jabinayaan jaamacadda ayaa la igu casuumay oo aan tagay bay tiri marka waxay tiri xafladii haddaan tagay waxaan halkii arkay gabadh macalimada oo maasha allah kamid ahba macalimiinta xafladan يعني قبل قابنية كشقينية مشرفات كأهد ماركتي حفلة نظام كذا مسؤول كأه إن أنتي معلمة هيد أي واحد تري أنت سيدا أي يكتب واحد يقول تري أذوق متى أبله هبلايو يعني معلمة هبلايو متى هي معلمة هبلايو ميات هاي مركا إن سعوديين تو هي مصاري ده هي عرب بدن بقى معلمين إن دمر كأه إسكول ذا كدقة وحيد هذا أبلا أبلنا أصل كده وكلمة تركية معناه هذا نوع وين ولا شيء ذا وين أي معناه هذا تهاي إن ضدك التركي ذي هي مركي ولا شيء سوين ونكو لهذا لا يأم ولا أم بقبضه إلى هذا سو ولا شيء ذا كوين ما ترى هذا هبلايو كلية أي واحد ترى هذا أبلا يذا معناه هذا ولا شيء ذي وين يدي مركا إن وكلمة احترام أو أين مقعودة توصق ما يران مثلا بقى إن قف التركي أو نن هدي ولا شيء سليرة خديجة ما أورانية خديجاي وحورانية أبلا أنبا أبلا خديجة يعني ولا شيء ذي وينيدي أنبا ولا شيء ذي وينيدي خديجاي أيو أرانية سبحان الله يعني احترام بيكتها وكلمة احترامه مركا بريجي إن تركيو ماركتي إن الدولة العثمانية أي دي أود كل هيد وضمضن عرب تقار بدن وكم إذا مصر وكلاء وضم بدن وعربات أيا كلمة هاسي أي كم إذا هيدو حيابه إن لقد حلي تركيا مركا إن ولا شوين مصاريدو إن أنتو دوين حتى يعني قف ولا شي سوين ويلا أبلا سيدا تركيو استعماشو إن لكن سعوديين تو إن ولبنا مصاريدو ولا شوين أبلا بي لهذان إن سيدا تركيو استعمالان معلمتنا أبلا بي لهذان إن مو أجرونتي تركيو إني معلمتنا أبلا يلهذان ولا لها تركيا كنول أم بكونولان شيء ياتاي نوجا ورميدورا لكن كلمة إني تهك ولا شوين يقول يران أيان أنا قارنا إن لكن إني معلمات لفت كذا يقول يران تركيا أبلا ما قارنا تاس ولا لها تركيا شو إنه شيء دونا أم بتجي أم بكو كوراي أم بصومراي إن لكن إن سعوديين تو waxay qaateen kelmadii waxay u qaateen macallimad ahaan bay u qaateen marka macallimada waxay ku yiraahdaan abla hablaha ay macallimada u tahay marka marka maaha kuwa jaamacadaha ka dhigay ee professorada ilaa kuwa iskuulada ka dhiga ayaa la yiraahdaa abla marka abla hiblaya ma tahay ayaa xafladii markaan soo gaaray bay tiri ayaa gabadh bay eegtay waxay ku tiri abla hiblaya ma tahay markaasaan ku yiri haa bay tiri waxa kamid ahayd betir gabadhaasi gabdhihii xafladan qaabinayay waxay tiri markaasaan ku yiri bay tiri haa waan ahay abla hiblaayaan ahay markaasay igu dhagtay oo igu dhunkatay oo isku kay martay markaasaan yaabay bay tiri oo ku yiri tuma tahay markaasay tiri inantaadii hiblaayo ayaan ahay show waa inantii markay yarayd aan timaha u meeydi jirin iskuulka intaan dadka kale ka qariyo aan daryeeli jiray markaasaan xasuustaan allah inantii hiblaayo ma tahay wadigan weynaaday ma sha Allah waa macallimad bay noqotay marka jaamacad bay ka baxday macallimad bay noqotay xafladan qalin jabinta macallimiinta marka qaban qaabinaya ee ka shaqeynay xafladda ayaa ka mid tahay marka waxay tiri way ooyday marka inantii bay tiri markay igu dhagdhagtay way ooyday waxay igu tiri inantaadii hiblaayaan ahay waxay tiri ayeeday habeen walba salaati leelka markay u kacdo way ku ducayn jirtay habeen walba salaati leelka markay ayeeday u kacdo way ku ducayn jirtay bay tiri ilaa intay ka dhimanaysay ayeeday way ku ducayn jirtay bay tiri waxa kale waxay tiri aniguna waxay tiri waan ku ducayn jiray mar walba bay tiri oo ilaahay waxaan kaaga bariyi jiray inuu ilaahay ku islaaxiyo ilaahay ku hagaajiyo niyadaada iyo dhurriyadaada ilaahayna ku barakeeyo camalkaaga iyo waqtigaagaba bal hadda ducada eega
إنه إلهي كو إصلاحيه وحيت أدعو لك بأن يصلح الله لك النية والذرية وأن يبارك لك في عملك وفي وقتك. قف نيدي لو هجاتينا الأعمال بالنيات تاد صلاة كان يسون نيد هذا إنها أكسنين أما نيد هذا أنا صلاة دينية أنت صلاة بس عمل ملها الأعمال بالنيات مركا نيدي هدي لجو هجاتي وذريتي أولادي لجو هجاتي إن أو عمل كاجي له كو بركة وقت كاجي له كو بركة دم حابة كام مقان الدنيا آخر واسكو هالشيء ما شاء الله تبارك الله. مركا سبب تاسين أنت مركا واحد الآن يقولون مركز تدعو هذا سامكو دعية مركز تو كو دعية بتري مركا يدين هبي أول بيكو دعين شرت إلا أنت كلمة نسي مركا وحى إن عمل كخبي أدأه قرصون إن أنت عمل كصالح ولبا قرصي قرصونان تنو waxay faa'iidadeeda leedahay qofka istusnimadii iyo riyaagii iyo in lagu amaano iyo waxa soo dhan ka badbaadaya. marka camalka qarsoon ee khabi'ada ah ee qarsoon ee adig iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala mooy cid kale ka warhaysa ayna jirin in subhanahu jalla fi ulah Ilaahay thumma adiga mooyaan cid kale ka warhaysa ayna jirin jalla fi ulah waxa weeyaan markaasi camalkaas oo kale lagu badbaadaa camalkaas oo kale awlaadu kugu toosnaata camalkaas oo kale musiibadaha iyo dhibaatooyinka Ilaahay kaaga badbaadiya. gabadhan marka Ilaahay dhuriyadii buu hagaajiyay awlaadeedii farxad odaygeedii farxad gurigeedii xasilooni ummadii Ilaahay uu sakhiray reerkay u dhaxday Ilaahay uu sakhiray ummadii oo dhow Ilaahay uu sakhiray waxay noqotay qof farxad ku nool oo nolol deganaashiya intaas oo sanadood ilaa intii caruurteed ilaa intii laga guursanay markaan inan bay ahayd iskuulkan ka shaqeynaysa inanta yar daryeelayso marka ilaa intii laga guursanay ubad dhaleysay ubadkeedii guursanayeen wata farxadda iyadii odaygeedii ma sha Allah tabarakallah. marka waxa weeyaan raawigii qisada soo gudbiyay wallahi wuu ooyay markuu qisada soo gudbinayay wuxuu yiri imisa qof khayr ka helay oo Ilaahay maaragtay intuu dad u asxaan falay dadkaasi uu sama falay ay u ducaynayaan isagoo hurda oo aan ka warhayn ay u ducaynayaan oo ducadaasi ay ku dhacayso qofkaasi oo Ilaahay u barakeynayo noloshiisa. imisaana qof iska hurda buu yiri oo cuntada iska cunayo ka dhargaya oo iska qosqoslay buu yiri oo aan ogeyn inay jiraan dad oo dulmiyay oo dhibaateeyay oo habaaraya oo habeeniya ma isagoo hurda ayagu soo jeeda oo habaaraya oo Ilaahay ka baryaya dhibaato qofka Ilaahay u weydiinaya dulmiga uu geystay awgeed. marka Ilaahay subhanahu jalla fi ulah kuwa ku amal qaata Allah inaga dhigo qisaskan waxa weeyaan qofka bani aadamka waxa laga rabaa inuu noqdo qof ummadu ka nabad hesho qof aan dadka dulminin oo dulmi umada kula kicin. waxa laga rabaa dulmi hadaad ku jirtid maanta inaad ka waantowdid inaad ogaatid dulmigaasi inuu naftaada iyo ubadkaaga iyo noloshaada ku soo noqonayo in qofkaasi madluumkii habeenkii yani adigoo hurda inuu qofkaasi habeenkii uu soo jeedo oo uu ku habaarayo oo maxay hayday Ilaahay ku maaragtay kaaga dacwoonayo subhanallah. runtii waa arin aad iyo aad u naxdin ilaa la yaab badan. sidoo kale hadii aad tahay qof khayr sameeyay waxa laga yaabaa adigoon ogeyn oo khayrkiiba iloobay aad samaysay camalkii aad samaysay wanaagsanaaba adoo iska iloobay in qofkii camalkaada u qabatay uu ku duceynayo oo Ilaahay khayrkaaga baryayo isagoon qofkaasi xataa ku duceynin sadaqada aad baxsatay iyo wanaaga aad samaysay asxaanka aad samaysay kitaabka xasanaadkaaga Ilaahay markuu kugu qoro waxa weeyaan Ilaahay waa kugu badbaadinaya oo sadaqaadku waxay celiyaan musiibadaha kugu soo ordaya marka ducadu qofkaasi ku duceynayo waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaaga bedeli kara qadarka sharkiisa ayuu khayr kugu bedeli kara. marka kuwii camalka wanaagsan sameeyay Allah inaga yeelo kuwii dulmiga iyo dhibaatada ka orda ee maaragtay aan sameynina maaragtay Ilaahay ka badbaadiyana Allah inaga yeelo jalla fi ulah. hadaba run ahaantii qisadani waxay xasuusisay gabaygii uu ku gabiyay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu oo ahaa markaasi raabi'ul khulafaa ar-rashidin iyo waliba nabi Muhammad inaadeerkii iyo waliba صحابي قبي نبي محمد إنتيسي فاطمة الزهراء رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وصلى الله وسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا وحا أن هل كان كسوق بنيا قبل قاسي وحيري لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبهة يدعو عليك وعين الله لم تنم. يعني هظلمن هداد أود ولا ضحي مقتدر أطهي يعني أد أودد إن أد المسجد هداد قوة لا ضي أود لا ضي وحظلمن يعني أود بان الله هي أوجد وحظلمن فالظلم آخره يأتيك بالندم.
ظلمك دمات كيس وحكو دماذا وكسو بيشبتا وقوممو إناد سقومميسد نامت عيونك والمظلوم منتبها إندها وهاتي سيحذين قفك مظلومك إندهيسو ويسو تشيدان ويوقف عيل كامبي يمرغو كتشرا يدعو عليك وعين الله لم تنمي isaguu ku habaaraya qofkaas indhihiisu ay soo jeedaan habeenkii oo dhan ku habaaraya adna waad iska seexatay وعين الله لم تنمي إلهي ishiisuna ma seexato subxaanahu jalla fi cula marka walaalayaalow ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu ka magan gelaynaa dhaalimiin iyo madluumiin midna inuuna ilaahay naga dhigin ayaynu ilaahay ka baryaynaa oo ilaahay baynu ka magan gelaynaa intaynu ku kulmi doono qisas kale خير برواقة بدن أيان الجيتجي واحد لا في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك